maalin buu nebigu saxaabada ku yidhi way soo jihaad bay ku jireen markaa buu nebigu ku yidhi bilaalow waan yar daalanahay halkanna waan seexanaynaa waa ku nasanaynaa caawe salaada subaxidayna dhaafina noo kici buu ku yidhi bilaalna hurdadii baa la tagtay radia allaahu canhu cadcaadiyo halkaa joogtuu nebigu kacay sala allahu calay wasalam bilaaloo hurdana waa la kiciyey nebigaa kiciyey bilaal maxaa ku helay yaa rasuul allah allaha naftiin nin niga qaadee la tegey ayaa taydiina la tegey buu ka yidhi markaa buu nebigu ku yidhi way tukadeen markaasuu yidhi meeshan waa meel khafladeede inaga kiciyo halkaa ciidanka halkaa u rara buu ka yidhi halkaa u guura meel salaad keliya ay ku dhaaftay hadduu nebigu yidhi ciidanku ha ka diga rogto ha ka guuro meel 100 salaadood nagu dhaaftay ka warrama joogitaankeyga bal ka warrama dadka muslimka dhul muslima intay ka tagaan dhul gaala u socda u guurayna ka warrama hal salaad meelay nebiga iyo saxaabadiisa ku dhaaftay iyagoo khaarijiina oo ilaahay diinkiisa u socda hadduu nebi maxamedu yidhi meeshan qaflad baa inagu haleeshay ee hanbadallo meesha 10 salaadood nagu dhaaftay ka warrama markaas soo inaan ka yar baxno soo maaha waa inaan ilaahay dartii u baxno cid nebi maxamed ka deeqsasan adduunka ma soo marin ghaswaddaas ghaswatu xunayn xoolihii markii mushrikiinta la jebiyey xoolihii gaalada laga soo qaaday ayuu nebigu sidaa u eegay aqrac binu xaabis buu nebigu ku yidhi mee waa kan 100 halaadoo geela siiya buu nebigu ku yidhi cuyaynata binu xusnin mee way kan 200 halaadoo geela isagana siiya buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabadii buu fiiriyey safwaan binu umaya oo markaa weli aanan islaamin ghaswaddaa nebigu la socday baa la yidhi diin iyo caqiidanimo nebiga uma soo raacine waxau nebiga u soo raacay tolnimuu nebiga u soo raacay markaa buu nebigu eegay safwaan binu umaya wuxuu arkaa isagiyo xoolihii gaalada laga soo qaatay 2 buro dhexdooda xoolo buuxiyey oo geelii lo'dii adhigii waxba ka maqnayn wixii mawaashin la odhan jiray isha intuu la raacay kolba dhinac sidaa u eegayoo la yaaban niyaddana ku leh talow xoolaha madheshida ayaa ku siin lahaa ayuu nebigu ku yidhi yaa abaa wahab markaasuu yidhi labayka yaa muxamed markaa buu nebigu ku yidhi ayucjibuka haadaa labadaa buurood xoolaha dhex socda haddii lagu siin lahaa bal ka warran fiicnayda mase heli karaa markaa buu nebigu ku yidhi huwa laka wamaa fiihi labadaa buurood dhexdooda xoolaha socda cidna kuguma haysatee adigaa iskale kaxaysa buu ka yidhi safwaan binu umaya sidaa intuu nebiga u soo eego wejigiisii iftiin baa ka baxay nebiga wejigiisa iftiin baa ka baxaya hal mar keliya intuu yidhi maa taabat nafsu axadin bimidli haada ilaa nafsu nebiyin naf sidaa wax u bixin kartaa ma jirto hadday jirtana naftaa nebi uunbay ku jirtaa ashhadu an laa ilaaha ila allah adiga hortaada waxaan ku qirayaa dadka hortoodana ka markhaati kacayaa dadkana aan u sheegayaa ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa adiga ilaa ilaahay mooyaane adiguna nebi rasuula inaad tahay baan halkaa ka markhaati kacayaa buu yidhi salaaddii nebigu hortiisa uu ku tukanayay kuma islaamin baa la yidhi safwaan binu umaya laanna muddo dhan buu nebiga la jooguu ag fadhiisanayay isagoo mushrika uu nebigu soo dhowaynayey oo marka salaadda la tukanayana maka lagu tukanayana intuu nebigu horay u baxo ayuu safwaan binu umaya gadaal u baxayuu nebigu iyo saxaabadu sida u cibaadaysanayaan buu fiirinayey kayfiyaddii nebigu u tukanayay kuma islaamin waxa uu ku islaamoo ninkaa beddishay deeqsinnimadii nebi maxamed markuu arkay buu ku islaamay diinta islaamka deeqsi buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qofallihii qofkii ilaahay la kulankiisa rajaynaya aakhirana ku xisaabtamaya cidda noloshaada macallim aad uga dhiganaysa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii nebi maxamed cid isaga aanan ahayn aad ku dayataa noloshaadii adigaa god ku riday ogow nin saalixiinta ka mid ah salafu haadihi alumma ayaa waxaa culammadu ka sheekeeyaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydii baa
laba beelood dhexdooda isagoo hilin wadadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaax oo dariiqa iska taala uu qaatay uu gaajoonayay uu ka baday xabadii tufaaxi markuu ka baday calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yidhi xaqa naas baad cuntay ayaa kuu fasaxay nuskii kaluu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqaynaya uu ku yidhi beertan ma adigaa leh maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u malayn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiquu ku dhacay waan gaajoonaya nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kanoo waa iska qabteen nuskaan cunay ha layga cafiyey buu nuskana ha layga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u teg isaga hadduu kaa cafinay isagay taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud baan kugu xidhi haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buuri aqalka ii dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shantaa arrimoodeen kuu sheegay leh haddaad iga guursato baan kaa cafin haddii kalena nuska iga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeel lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd bal sheega way adag tahay soo maaha war nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqaya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkani waa nin mu'mino aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarrada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yiri taabu markaa ka fikiraya saxaabni kale waan guursan buu yiri ma layga cafin ha aqdigu markuu dhaco waan ka cafinayna inta ka horeysase ka cafin maayo ninka dhalinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan soo maaha oo cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odagii baa yidhi haddaba mar haddii aqdigii dhacay waa kaa saamaxee aroosna waa tahay inantii waa toqolka ku jirta way ku sugaysaaye orada u galbu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isagaa markaas la sii hadlayo wuxuu yidhi haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad is hortaagtana ku arki mayso haddaad maaragtaanay aad u qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad kici tiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaayo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naartaa ka badbaadide iska salaam malaa'igta ilaahay baa kuu jawaabi doontee darkaa buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaasaa aqalka bartamihiisa waxaa loogu diyaariyey gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynaayo xooralcayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegayo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldanoo qol kale ayaa soo galay maya bay ku tiri zawjadaadii baan hay ii kaale bay ku tiri markaasuu ku yidhi aabbahaa siduu iigu sheegay si ka duwan bay u dhacdee xantu waa xaaraan bay ku tiri aabbahay xaman waxau kaa yidhi aniga ii sheeg anaa kuu jawaabiye ma aragto igu yidhi sawdigay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiye ma aragta weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo wax ilaahay nebi maxamed ka cadhaysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dikri iyo qur'aan iyo hadal annaka nagula hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka cadhaysiinaya kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba weligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheegaa meel ilaahay uu ka cadhoonayo
umay adeegsano lugayga kumay marin buu yiri sidaas waa bahay u jeeday si kala hamoodin bay ku tiri ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ميلو سكفلين اي ارزاق دي لهي كسيي بيرتي با لسيي غبدي مال قبين كو دلنا وا لو دسي اعظم من هذا بال waxa kasi qiimo badan oo kasi weyn ninka saalix waliga aha iyo gabadha mutiicada hayde aabaheedii hooyadeed talada aabii hooye ku guureysay ee taladeeda ana ku socon ee talada labada waalid aqalka u fadhidayna waxay ku curteen labada qof markay isku tageen imaam al-a'zam bay ku curteen imaam xaniifa imaam al-a'zam imaam nu'man bin thabit imaam xaniifa imaamka a'immado dhan imaamka uu ahaa ee imaam maalikna wax baray ee imaam maalikna imaam shaafici wax sii baray shaafiicina imaam ahmed wax sii baray imaam al-a'imma baa la yiraahdaa waa imaam al-fuqaha sheekhaas gabadhii iyo ninka saalixa markay isku tageen waliga ilaahay cilmigiisu maanta adduunka dhan uu buuxiyay ee faqiiha ahaa ayaa ilaahay labada qof ka soo dhex saaray war walaalayaal lan yaray haddaan ilaahay ka cabsoono oon ilaahay dhab u rumayno oo daacadda ilaahay ku dadaalno oo sida ilaahay naga raba aan yeelno sidaan doonayna nolosha adduunyada ninkana la inooga dhigo haddaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay haddaad leedahay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culummada weydiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mid a ayuu ahaa waliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mid a mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqaladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaana jawaahirta iyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرت يدي إلى هالكاغاتي سمحادو ملي القرآن هذا ليس هذا الكيجي لما غشيه واربقر نوعاي أدونك مجرى ما صومري مي هدو صومرين وسليمان عليه السلام عد كلمه نبي سليمان نبي قاس ملكك انت اللي إلهي سيينا سا إلهي طاعدي سمدافن إلهي ذكرقي سمها المامن حل مالين كلية قرآنك إلهي كشيك في سورة الصاد وعلى فرضه آذو جعلا طبعا فرضها أنا وأجعلها في كل الزمان فرضه هو شيء غالي فرضه سي وكل جري أيا صدا الله صهور مريء بالليل ساعد إلهي ذكرك وسمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد حاجر إلهي للمنا جودو وقال لك وريه قال لك الدنبوي أيام وإنه قفك مؤمن قرتا ساعد حاجر إلهي ونوجد يلا دونا يو إن الدنيا انتو كائمنو مساجد صوق لون إلهي ودوانو إلهي لمناجون ساعدي ذكرك وسمين جرو ربك لمناجون جري أيا فرضه صدا الله صهور مريء فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكي لا يقرأك أبو شيء فرضه بالهرمري وحوري فرضها هذه هرمرسان وعي إيقام مشغوليين إلهي حسكي بيقام مشغوليين بيولي ذكرقي أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع عليه يقول يسوع عليه كركا كوضا جرى يعني وحلي وحي ضاعد إلهي كم مشغوليين نبيد وقورتك قوينيين إنك صلاة تكنيني
imise jeer baa dukaanadaynu naga mashquuliyeen dukaanadayna weli ma bixinay ninkeebaa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alle markaan salaada galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici karta ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyey buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqi ilaahayna wuu ku gutay xaqi bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqi ilaahayna ma dayicin xaqi bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nebiyo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay aka qur-aanka ilaahay ku sheegay nebiyullaahi muusa calayhi salaam markuu nebi shucayb adhiga uu jirayey dhul wuxuu adhiga ku raacaya maaragtaane yeyga iyo dhurwaagu ku badan yahay adhiga marka la raacayana lama jiibsan karo geel iyo lo'da marka la raacaya waa la jiibsan karaa laakiin adhijiruhu ma jiibsan karo waayo dacwada ayaa ka dafaysa dhurwaaga ayaa ka qaadanaya muusa calayhi salaam uu daalay markaa deedna geed buu hoos fadhiistay baa layidhi isagoo daallan dhinacna uga baqayo dhurwaaga inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jiibsaday baa yar jiibsaday hurdadii baa la tagtay mar dambu markaa nebi muuse u baraarugay ushiisii buu waayey ushii ul buu sitaa mogta markaasuu adhigii buu dhex yimid oo wuxuu arkay dhurwaa ushii nebi muuse haysta calayhi salaam oo adhiga neefka baal martaba u soo wicinayo ku soo celinaya markaasuu nebi muuse yaabuu sidaa u egay waa dhurwaagu adhiga uga baqaya baa u soo ilaalinaya markaasaa lahatif dhawaaq buu maqlo lagu yidhi kun lii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid yaa muusa sidaad anigu aan doonaya haddaad ii yeesho sidaad adigu aad rabtana annagaa kuu yeelana baa ilaahay ku yidhi sida rabbi doonayo haddaan yeelno sidaan innaku doonayna ilaahay noo yeelo dad badan baa kula noloshaan maanta fahmi la'nahay nolosha haddaad cibaadada ka dayi weyda macaankeega ma fahmi karaysid waad wareeri waad dawakhi adoo wareersanna malakalmowdkaa ku imana ogow laakiin haddii xidhiidhka ilaahay aan adkaysanno oon iimaanka islaamnimada salaada cibaadada diinteennu ay naga noqoto maaragtaane dhaqan oo aysan naga noqon dhegaysi keliya oo diintu dhaqan ay naga noqoto waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku galayna janno nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisaayey ayagoo maskiidka ka soo wada baxo isgarab socduu nebigu ku yidhi cali ka warran faaduma haddaan kuu dhiso markaa buu sii jeesto uu ka xishooday faaduma waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa taysa soo diyaari buu ka yidhi wuu socday inantiisii buu nebigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay dee yaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu canha way aamustay way xishootay markaabay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi dee cali baad ii dhistay haa cali yar calool buuran yahay haye habeenoodna uu leeyaho habeenkii indhaha aad wax ugama arka bay ku tidhi markaa buu nebigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummatii silman wa akharuhum cilman wa acdamuhum xilman buu ka yidhi faatimaay ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummaddeeda ugu soo horreeyey oo ugu soo hor islaamay waana ninka ummaddeeda ugu cilmi badan waana ninka ummaddeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi barkintaana qaado qadiifaddaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waa ku hoynayaa ee diyaargarow buu ka yidhi innaku iminka gabdhaha waxba kuma darnee waxuunbaan ka sugnaa soomaa inta badan soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nebigu inantiisii faatimo markuu dhisayay uu raaciyey barkin buu siiyey oo gogol buu siiyey oo weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabkaa maaha u fududaa noloshu way fududay
guurka haddii la fudaydiyo bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhallinyaradu ku dhacda ayaa adkaan haddii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeyey ogow zinadii baa la fududeeyey marka guurka inaan fudaydina diyaar ma u nahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkaan kula dagaalami karno in guurkana la badiyo in la fudaydiyo weliba islaamnimadu ay kaa tahay ficil ku dhaqan inaad ku dhaqanto ood barato ood ku camal fasho waxaad u hiilinaysaa nebigaaga calayhi salaatu wasalaam ummu sulaym inankaygii bay nebiga u keentay ku tiri nebiga u adeeg nebiga u khidmee khidmadda nebi maxamed waa khidmaddii diintii ugu deedna nin abu talxa la odhan jiray baa markaas soo shokaansaday iyadii waxay ku tiri maad islaamta markaasuu yidhi may laakiin diin baan haysta anigoo diin baan leh markaa bay ku tiri diintee waan is ognahay miyaanad xishoonayn bay ku tiri adoo nin ah oo ilaahay ragga uu caqli ku deeqay qori gacantaada aad ku qortay inaad baridaa oo baahidaada aad u sheegataa mayna nuqsaan kugu ahayn bay ku tidhi anu gaal ma guursanayn in mushrigee ka dhaqaaji bay ku tidhi markaa iimaankaygay ilaalsanaysaa iyo diinteeda wuu kolku sii jeestay uu yeedhay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu haddaad islaami lahayd abu talxow islaamnimada aad soo gasho ayaan meherkayga u qaadan bay ku tidhi soo islaam bay ku tidhi oo gabadh meherkeygii mariinkeygii wixii haweenku ay ku farxaan oo dhan waad og tihiin way jeceshahay waa habeenka keliya gabadhu ay farxad caruuskeedii waxaasoo dhan waxay ka doorbiday inay ninkaa naarta ka badbaadisu noqdo asxaabtii nebi maxamed ragga ugu qiimo badan uu ka mid noqdo isaguna markii dambe marka diinta ilaahay hanu helinno waan ku dheeraadaan u malayn sheekh saamixuuni khayr baa inaga muuqda khayrkaana allah inoogu sii wado diintana in sha allah inaan camal fal u bedelo soo diyaar uma nihin sala allahu calaa sayidina maxamed wasalaamu calayh mid baa kuu sheegaya dhegayso nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo nool ayaa lagu yidhi nebi allow salaaddii baa taagan markaa buu nebigu yidhi abubakar ummadda salaadda ha ka bixiyo caaisha radia allaahu canha ayaa tidhi yaa rasuula allah abibakr sidiiq waa nin qalbi jilicsano maqaamkaaga hadduu istaago maaragtaane oohintiisa ayaa ka qaalib noqonaysa qur'aan akhriskiisa oo la fahmi maayaba qur-aankiisa markaa buu nebigu yidhi caaisha aamus buu yidhi adigu abubakar salaadda haynaga bixiya buu rasuulku yidhi abubakar nin xishood badan buu ahaa oo naftiisa dhowra oo mukhlis oo ikhlaaskiisa iyo iimaankiisa ilaashanaya buu ahaa ismu qadimine uu joogaa وعلي عمر بن الخطاب بعد دمعين اسقدمه مرقا ابو نبي قورته لا سو غلا مساجد الا غريغا نبي او جيفو يي مسجدك اسكو موقدان ما اوغتahay markuu arkay nabigu Umar oo safkii istaago istawule ayuu nabigu riwaaya aba Allah wal mu'minuna illa Abu Bakr ilaahi iyo mu'miniintu way diideen Abu Bakr oo halka jooga nin kala salaada umada inuu ka bixiya ilaahayna ogolaan maayo mu'miniintuna ogolaan maayo rasuulku yiri sidaasoo markaa abubakar uu salaadii ku galo ummadda kaga bixiyey dhegaysa buu yidhi abaa suufyaanow salaadda waa camalka aakhiradeeda badbaadinaysa buu yidhi een aakhiro ku badbaadayno ninka aakhiradeedii hoggaan la nooga dhiga camalkaan ku badbaadi lahayn adduunyadana isagoon baana hoggaamin karay buu yidhi cali bin abi aalib salaadii uu abubakar u tujiyey ummadda nebiga oo nool ayaa laga cabiray nebi maxamed gadaashiisa khilaafada islaamka nin abi bakar uga xaqle haba yaraateen ma jiro walaalayaal marka salaadu zamankii nabigeena sal alla alay wasalam haddana abi bakar ninka ku xigay xagga salaada salaadu fiicnida cumar binu khadaab buu ahaa taladii ummadda cumar baa qabtay haddana cumar gadaashiisa ninka salaad wanaag ninka salaada wanaag ugu salaad wanaagsanaa ummadda cusmaan buu ahaa cusmaanna maaragtaanay abi bakar cumar buu ku xigay uma caliy buu ahaa haddana calina wuxuu ku siiyay cusmaan waa markay ummaddu ay wanaagsanayd ninba ninka uu ka salaad fiican yahay ayaa talada ummadda loo dhiibanayay cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruum uu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام
qisiiskii baa ku yidhi ciidanka ninka wata waa nebi maxamed ardaydiisii arday ka mida ha naga dilin nasraaniyadda u bandhig waxli wuxuu diinta ku doorsan karana ha la siiyo si nasaarada islaamka ugu socota uu sadun can sabiilillaahi ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nebi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaallo iimaankoogu qalbigu dul yaallaa halkuu dul yaallaa qalbiga وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ماها من عربك الدنيا الله من ما أدية لا دافسن كرا ماها ومن قلبك إيمانك فريستي وين إلهي كنت على المقصد هو يا بقرك ما كلها تعين النصرانية ده سوا قلي بقرتوي ده أنا كلا بركة بنقصينه مركز وقصلي وعند بقرتوي ده هذا أورد ما يسترون وحبل لقى الريبين iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelin buu kay wallahi ma facaltu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiina qaado ma yeelayo buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa dawaaba nin xidhanahay haday dilaysan waa nin xidhanahay dixda alxusnayn bay sugayaan iyaku إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكين هلان وإلهي قرقار كيس الله بلن قاد عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهد بيد وحبوه ما أركان وحال الله السماء مركا بغرك أمر وحكو بحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا أي هرتو دي لكاني لبنانو مسلمين تيتو الله سوق قادو يسقون أركايو ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqon nabi dhaadeen markaas la qabto labadii basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka waran subhanallah isagii baa markaa la dulkeenay oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii ilaahay gaalow markaas uu ma gaaloobayo maxaa loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halkaa la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyonan haysano ka ooyayaa buu kaygu أفكالية معها كما يلنا فإن ليقو أبوري لها ومد والبالك ينتظر للدول كان إلهي درتي يقبحي لهي تاسا تمنين يا منها يستمو كي بقر كي بعد كان دلقيس وحنو تري ماجي حاسك سيدينو واي سيدانا ما كولا تايبو كي ماذا حين هذا يقدم كان وانا كو سيديني مرقاس المقال برمضا حقدم كذا ساقي بس لا شورست شرط بوكو حدا وحدا هدي مسلمين تا إلى حدا أدي سيديني سيدها وان كاردون كان هديك لا كاردون كان ما يبوكو يدي مركز الوحاجة يقدونكو مركز المقال بان ما ضحكتون كذا أنا أصحاب النبي محمد كمذا رجعه ويسيديني يسوما هنا وكاردون كان اللي برير بالجهاد بنقصوا علينا كلا بيحنا هنا عجيب أصحاب الرسول رئيس وقالان عمر بن الخطاب صود ويي inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa Umar ku yiri Abdullah ibn Hudaafa ha dhunkano ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadda u baxay hebel dibadda u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo iskugu toostay قالنا لا شقيسو ايا ماندا مسلمين هورمر و اركان قالدا دلكوغا انا تغنو ايا ماندا مسلمين هورمر و اركان ايكونا رغي لا سو دايي دنكشدا لوغو سو دايي با عمر كله قال بو مدخا كسو دنكدي السلام عمر با يري بلوك هذه هوريستي سيده كو دحدي ان ادن قال مدخا كدنكتا وحريكا كسو دايي بيدي سمركا عقدتي يريد قلبك وقشي وعمر وقبي يبو يري حق على كل مسلم
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك بيولي قف كستو مسلمة وحق أبو عمر إن ما ركتنا عبد الله بن حذافة وماذا حكدون كذو أنا كان كبل أبو يقولي أنا كان كبل أبو إلهي بيكو حنايان إسلام نمد يكو حنايان الضوما وحي نقدن إلهي ومسكلة يحي سيدي إلهي دون يمرك يالان سيدي يكون أي دون ينبع إلهي أدونك ويالان nin qisad maalin iiga sheekeeyey nin dhakhtar oo Jarmana ayaa wadannadaas ayuu airport ayuu markaa diyaarad buu magaalo kale u raacay nin dhalinyaro oo muslima ayaa markaa suuratul kahf qisadaas risaalad yar oo culimadu ay ka qoreen oo tafsiirka quraanka uuna wax kale ayna ku darin oo luqada jarmalka lagu qoray lagu taabacay ayuu markaa yarkii dadka u qaybinayay dadkii diyaaradda sugayay ee kuraasada ku fadhiyay ninkan waa nin professor oo dhakhtar oo raga adduunyada xagga dhakhtarnimada ugu aqoon badan buu ku jiraa laana wadanka Jarmalku waa wadanka lagu sheegay la yiraahdo waa wadanka adduunka ugu aqoon badan xagga dhakhtarnimada loo doonto caafimaadka ilaahay baa caafimaadka haye ilaahay baa wasaaradda caafimaadka lagu oran laakiin wasiirka dhan ee caafimaadku u buka balka waran sheekh wasaaradda caafimaadka wasiirka dhanna u buka nin baa la nagu yiri ninkan wuxuu madax ka yahay hay'adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga markaas ku reerkaaga imsa masiibo ku dhacday wuxuu yiri inankayga weyn baa iga wala buuri walan yahayba debaad ka hortagtida waxba kama hortagi karo insaanku waa daciif وكان الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا إلهي بشيء ضعيف marka wadanka dhakhtarnimada lagu amaano ninka marka ka soo jeeday risaaladuna luqadooda ku qorneed marka yarkiiba uu tuuray oo siiyay oo qaado marka handbag uu gacanta ku sitay iskaga riday waa nin mashquul ninkan laakiin taraaga diyaaradda uu raacay min wadan ila wadan ayaa saacado dhan buu soconayay markuu kursiga fadhiisto hawlihiisii wixii uu ageeganay uu dhameystay buu xasuusto yiri kii yaraa ee airportka aad ku aragtay muslimka ahaa warqadii uu ku dhiibad halka ku ridatay bal soo saar aayadaas markaas dul taagay wa nuqallibuhum daata al-yamin wa daata al-shimal lan yarada ilaahay bay marka ay jiifaan marna midigtaan u beddelnaa baa ilaahay marna xagga bidixdan u dhignaa say u daalindee ila qofku xaggan haduu jiifo un xaggan xanuun baa gaadhay jirkiisa waa qalibnaa baa ilaahay laakiin ayga ilaahay markuu ka warramay wuxuu yiri وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل ايغو اسغو لما قلبايو ايغو سدو سخدا واد رagtante sidaas uu sexdaa isagu aygu bogganu dhulka dhiga wuxuu yiri marka ninkii wuxuu akhristay bin aadanka markay jeefaana waxa la quraankan uu sheegaya in la qalibaayo asxaab al-kahf oo marra xaggan loo rogay marra xaggan loo rogay laakiin ayga maxaa loo rogi waayay buu waa inaan cilmiga baaraa markuu wadankiisii tagay oo dhakhtarkiisii ku noqday ayuu qalabkiiba baaray oo qoon wuxuu baaray marka dubkii bini aadanka ila waxaan way wada haystaan moogta dubkii bay eegeen qalab buu ku eegay inta saacadood dubka bini aadanku dhulka dul oo likara buu soo saaray ayga haddana wuxuu soo saaray boggiisii markaasuu soo saaray haddana ma aragtaan inta sane aygu boggiisu oo dhulka dul oo likara lagu hayn karo sanawaad qurun dhan markaasuu yiri cilmigan ninka keenay baan u baahanahay buu adduunka waayo markaas muslimiin buu raadiyay oo la hadlay oo la xiriiray waxa la yiraahdaa quraan wa tanzil min rabbil alamin munazzal gormaan quraanku soo dagay 14 qarni ka hor baa laga joogaa quraanka soo dagay dhowr 40 sano ayuuna dushii ku soo dagay محمد عليه الصلاة والسلام نبي الأمي نبي أمي آية قرآن كدوشي سلقو سودجي أمي بالليلي إساقنا وحما قرو وحا الله قرأنا ما آخرين كربا الليلي
qur'aanku nebiga sifaadka ilaahay uu ku sheegay ee nebiguna uu ku faanuu yidhi naxnu ummatan ummiya annaku waxaan nahay ummad ummiya waxna ma akhrina baa nebigu yidhi waxna ma qorno ummaddaasuu qur-aanku ku soo degay ka warrama qur-aanku waa mucjizo weeye